رايون قبيلة أورون الصوت الآن إن أنت رايون قبيلة أورون الصوت الآن تلقوا بينو لو تايلين محافظة تلقوا بينو لو تايلين محافظة سوية ويا لو تسمعني محافظة سوية ويا لو تسمعني محافظة لو تسمعي محافظة طريقة يا سلام ترون تبراكو كفتاي كفتاي يا سلام تلا سويدو دعداي دعداي يا سلام ترون تبراكو كفتاي كفتاي يا سلام تلا سويدو دعداي دعداي يا سلام تلا ديسيتو لونتاي يا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داوديال meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo gabagaba u ah tartan aqooneedkii dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee bishii Ramadaan ina soo dhaaftay ka baxay TV-ga Universal xafladan oo aanu ku soo xiri doono guud ahaan tartankaasi isla markaana abaalmarinadii loogu talagalay ardadii tartantay halkan lagu bixi doono hadduu aan leedmo waxaa stuudiyaha nagula sugan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo maamulkiisu barnaamijkan ay taabageliyeen isla markaana sanadihii u dambeeyay barnaamijkan garab taagnaa si loo dhiirigeliyo aqoonta loona garab istaago ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa agaasimaha TV-ga Universal ee bariga Afrika oo barnaamijkan gacan weyn ka geystay oo aan dhihi karno wuxuu ahaa laf dhabarkii barnaamijka intii uu socday iyadoo aan ka marqaati kacayno dhammaanteenba muddadii barnaamijkan uu socday waxaan sidoo kale mahadcelinaynaa Dr. Liibaan Xuseen Ciise oo ka mid ah golaha sare ee jaamacadda ama xubinka ah golaha sare ee jaamacadda ahna la taliyaha gudoomiyaha golaha waan u mahadcelinaynaa isna maadaama doorkooda uu ahaa mid lama ilaabaana oo ku aadanaa su'aalihii tartankan muddadii uu socday su'aalahaasi oo ahaa kuwa la isku dheelitiray isla markaana lagu beegay garaadka iyo maskaxda dhalinyarada tartamaysa aad baan ugu mahadcelinaynaa isaga iyo jaamacadda Muqdisho oo wakiil ka yahay waxaan u mahadcelinaynaa macallimiinta maamulada ardayda halkan inala jooga ee ka mid ahaa iskuuladii tartamay kuwii guuleystay kuwii kaalimaha hore galay iyo iskuulaadkii kaleba tartan ka qayb galay muddadii bisha Ramadaan ee uu socday dhammaantiinba soo dhawaada ayaan idin leenahay xafladan ayaan hadduu alle inuu ku soo xiri doonaa ama munaasabadan guud ahaan tartankeenii bisha Ramadaan soo socday marka hore waxaan ku furanaynaa ayadaha quraanka kariimka ah qowlkii eebe waxaan u yeerayaa maxamed cabdiraxmaan faarax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. aad buu umahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan faarax oo qur-aan kariimka ah noogu furay ayadaha qur-aan kariimka noogu furay barnaamijkeena gabagabada u ah tartan aqooneedkii dugsiyada sare ee gobolka banaadir oo ay ka qayb galeen 24 iskuul iyadoo ugu dambeyn iskuulka imaamu maalik uu ku guuleystay tartankan. kaalinta labaad waxaa galay iskuulka salaaxudiin, kaalinta saddexaadna waxaa galay iskuulka kale ee al anwaar. dhammaantoodba waan u mahad celinaynaa iyaga. kelmadihii ayaan aadi doonaa goordhow, hase yeeshee intaana aadin waxaan ku hormarayaa bal inaan dib idin xusuusiyo qayb yar oo ka mid ahayd tartamadeennii, gaar ahaan tartankii ugu dambeeyey gabagabada u ahaa tartan aqooneedkii dugsiyada sare ee gobolka banaadir. su-aashan dhinaceena shanaad waa sugaan, waxaa iska leh tartamayaasha imaamu maalik. waxay u dhacaysaa sida tan, su-aasha saddexaad ay idiin tahay waxay u dhacaysaa sida tan: saarka sahan ee uu tiriyey allah u naxariistay carays ciise kaarshe waxaa ku jira tuduca soo socda: ratigu waa guuxay, haddaba ratigu maxaa uu la guuxay? mar labaadaan ku celinaa. saarka sahan ee uu tiriyey allah u naxariistay carays ciise kaarshe waxaa ku jira tuduca soo socda, tuducaasi oo ah ratigu waa guuxay, haddaba ratigu muxuu la guuxay? mar saddexaad, saarka sahan ee uu tiriyey allah u naxariistay carays ciise kaarshe waxaa ku jira tuduca soo socda, kaasi oo ah ratigu waa guuxay, haddaba muxuu ratigu la guuxay? jawaabta ardayda imaam maalik. بسم الله. أنا مقعي سيد أحمد محمد حاشي كان السعودة دكتور صدح يسر إمام مالك. أديان سؤال أسكور علم وحنا قلنا إساء وحلا وذا وحو كسر تجي مال أو أبارة وحو إمادة مال أو برواقة مركز كده برتجي وجوحي وواقع عمل الله وذا. واي هذا صح تاي هذه كلام قدو سؤالي. وقت السؤال شو واحد سؤال شيء سناد قدو هان سؤالها ترتن كواحنا أهيد سؤال شيء لو يدي دكسي إمام مالك نكون سؤال شيء سدحات أهيد سؤال شاء سجان تا دكسي إمام مالك جوابته وكبحي مد صح ويا سؤال اللي حادنا إنه حاسكله ترتمياش سلاحدين ينوى سوغان waxay u dhacaysaa sida tan: saarka sahan ee uu tiriyey allah u naxariistay carays ciise kaarshe waxaa ku jira tudaca soo socda, kaasi oo ah qaalmuhu
waa goojiyeen haddaba qaalmuhu maxay la goojiyeen mar labaad saarka sahan ee uu tiriyey carays ciise kaarshe allah u naxariistay waxaa ku jira tudaca soo socda kaasi oo ah qaalmuhu waa goojiyeen haddaba qaalmuhu maxay la goojiyeen mar saddexaad saarka sahan ee uu tiriyey carays ciise kaarshe allah u naxariistay waxaa ku jira tudaca soo socda kaasi oo ah qaalmuhu waa goojiyeen haddaba qaalmuhu maxay la goojiyeen waayahay jawaabta salaaxudiin bismillaah magacay waa kaafiye maxamed maxamuud ka socota dugsiga hoose dhexe iyo sare ee salaaxudiin su-aashana la weydiiyey haddaa ka warcelina waxay noqonaysaa insha allah qaalmuhu way goojiyeen macnaha qaalmuhu way rimeen oo rimagii ay qaateen waaya hadday sax tahay haddii kale aan guddiga soo celiyo waa tahay su-aashaas waxay ahayd su-aashii lixaad ee guud ahaan su-aalaha tartanka dugsiga salaaxudiinna waxay ahayd su-aashoodii saddexaad suugaanna way ahayd su-aasha dugsiga salaaxudiin jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah waayahay qayb yar oo ka mid ayay ahayd tartankii hase yeeshee waxaan kaloo idiin soo wadnaa natiijadii ugu dambeysay gaar ahaan tartankii labada iskuul ee salaaxudiin imaam maalik oo ahaa finalka hase yeeshee qadar dhextaal ayaan markan idiin soo gudbinaynaa murtiyey maguuraan taariikh la soo maray sheekaa micnayse xamar waa madhaafaan waana lagama maarmaan malkii dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar waa madhaafaan murtiyey maguura taariikh la soo maray sheekaa micnayse xamar waa madhaafaan waana lagama maarmaan malkii dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar waa madhaafaan waayahay muuqaalkaasi waxa uu dhextaal u ahaa barnaamijkeenii bisha ramadaan muddadii uu soo socday iyadoo oo uu ahaa muuqaal ka turjumayey caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo guud ahaan gobolka banaadir isbedelada ka jira iyo sida ay magaaladan hooye ugu tahay guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan guda gelinaa waqtiga ina haya qaarkiinoo laga yaaba inaad saacado fadhiseen qaybaheena kale ee tartanka dib ugu noqon mayno oo natiijadu oo waxa ay ahayd mid
labada iskuul su-aasha ugu dambeysay ayay ku kala adkaadeen oo ah tii tartanka ugu dambeysay marka imaam maaliga su-aashii dhinacoodana way ka jawaabeen ardayda kale Salaxudiin su-aal sidaasay ku haleeshay laakiin su-aalihii oo dhan 9 su-aal oo kale oo dhan waxay ahaayeen kuwo siman oo isku dhibca haystay marka nasiibku wuxuu noqday su-aasha ugu dambeysay loo kala baxay waxaan siinayaa kelmadda guud oo ku saabsan tartankeena ustaad Barre Sheekh Cabdullaahi Bangladesh oo ah gudoomiyaha guddiga waxaan dhammaantiin ka codsanaynaa inaan waqtiga aan soo gaabino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدني عبد الرحمن عمر عثمان يريسو انجنير يريسو قدوميها قبل كبنادر أهنا دوغا مقالة دكتور محمد حسين عيسى دكتور ليبان حبناها وهوين أما مؤسسينتا أما مدحدة جامعة مقدشة أهيد هيئدي أما جامعة سؤالها سعودية أرنيسي أهنا جامعة أوغر الصوماليا عبد الله حرس كلمية أقاسمها يونيفرسال تي في عبد الله أحمد نور وأداديها برنامجك أهنا صاحبك guddiga sida gaarka ila socday iyo maxamed xasan kulmiye oo isagana naga maqan oo isagana guddiga kamid ahaa iyo axmed abshir geedi oo isna aad iyo aad isku xiraha barnaamijka dhammaan inta ka soo qayb gashay ardaydii iyo macallimiintii iyo daawadayaasha TV-ga bisha ramadaanka ku xirnaa oo dhan barnaamijkan aqoonta dhammaantiin waa idin wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh farxad weyn bay ii tahay inaan mudanayaal gudoomiye mudanayaal inaan idin hortaaganahay أنا ينسو قد بيو وربحين تي كوبنيت مددي ترتنا قوانت كي رمضان كا قبل كبنادر ومال قلنا جامعة مقدشنا أي سؤالها دش أردتي آدي آده فن تي في يونيفرسال العالم كنت مني حقيقة وحن ذكر مدن قدومية يا مدن ريال وهي هيد برنامج آدي آد قيمة له والله هذا حرف وقت قبل لابد إسكك عشدين أو وحبرشة يور باهنت لبضع سؤال هل كدلك لقد لسه لقد توسيو حقيقة أنا bahda waxbarashadu xilli xitaa warbaahintu aysan waxba la gudbin karin inay aad isu shaqeeyeen mudane gudoomiye mudanayaal xilligii burburka oo aad u adkaa cid wax qaban karta 97 markii jaamacadda muqdisho la aasaasay iyo wixii kasii horreeyeyba dadka bahda waxbarashadu inay u istaagaan waxbarashada in dhalinta Soomaaliya inay badbaadiyaan isla markaana ay tiknikada markii qayb la saaro ay hogaamiye kooxdu saaraan iyo dagaalada qabiilka inay ayagu ku dadaaleen qayb ka dajiyaan تكنيك كدجان حقيقة أنا والجو جوليس أرنتاس إلا هيرك إيمان تمارسه أي سوجارتي قبل كبنادر آد بان وجمهد علينا برنامج كان لفضبرت وها إنه أغون تدي رجلي حقيقة وحلا مال قشدو أما أبال قشدو ومين سن وحبرشة تاس أو أن ضيع من الدنيا آخربا وسن ضيع من أما وسن من مدن قدومي مدن ريال هدي أن أصل نقولنا قيمة وحبرشة لا هاي أما سومالي ذا burburkan in la badbaadiyo ummadda la badbaadiyo wixii burburka ka horreeyay dawladba u taagnayd xoog leh laakiin muddadan iskaashi xoog leh ee ah bahda tacliinta gobolka dadka hantida ilaahay siiyey jaamacadaha iskuulada in la iskaashado carruurta Soomaaliyeed la badbaadiyo wax la baro u baahan tahay tusaale yar haddaan dib u soo noqono 1976 asli xasan cabaade waxay ahayd gabadhii u horreysay oo baylood ah ee Soomaaliyeed ee bayloodnimada qaadata laakiin intaan Ethiopia kaliya ka horreynay waxaad dareemi kartaa marka lagu yiraahdo 2010kii waxaa qaadatay gabadhii Ethiopia ugu horreysay ama sal indegnaano waxay qaadatay gabadhii baylood ah Ethiopia ugu horreysay macna intaan kala fognahay intaan dhunnay waad fahmi kartaa gudoomiye muddadaas 1976 ilaa 2010 u dhaxaysa waa muddada anaga aan ku jirnay maartay dhibaatada iyo burburka aan ku jirnay mudane gudoomiye mudanayaal tartankan intii maalgelisay ama saddexda hay'adood ee gobolka Banaadir iyo TV Universal iyo jaamacadda Muqdisho ilaahay abaal ka siiyo shaqo fiican bay mujtamac u qabteen markaan fiirino dib ugu noqono tartanka waqtigu soo bilowday 2016 tartankan bilowday gobolka Banaadir uu istaagay waana filayaa gobolka Banaadir inuu intaas ka badan waxbarashada maalgelin doono oo ilaa xitaa tartanka gobolada insha Allah uu gaari doono hadii la yiraahdo 2016 dugsiga Axmed Gurey baa qaaday koobkii tartanka ramadaanka 2017 waxaa qaaday dugsiga Jaabir bin Xayaan gudoomiye 2018 waxaa qaaday dugsiga Global 2019 oo sanadkan dugsiga Maalig baa qaaday
afartaas dugsi guddoomiye afar degmo ayay ku kala yaalaan afarta degmo laba dugsi oo ka mid waxay ku yaalaan degmada yaaqshiid dugsiga jaabir bin xayaan iyo dugsiga axmed gurey waxay ku yaalaan degmada yaaqshiid halka dugsiga galoobal uu ku yaala kaaraan dugsiga imaam maaligna uu ku yaala degmada howlwadaag marka degmooyinkiina waa tartamayaan nafsadooda iskuullada kale ma wax tartamaya guddoomiye haddaan dib ugu soo noqono 264 su-aal ee jaamacadda 350 su-aal ku dhowaad bay soo diyaarisay waxaa laga jawaabay 264 su-aal baa guddoomiye laga jawaabay meel fiican baad dareemi kartaa inay ardadu soo gaartay sababtaa tartan hal daqiiqa lagu tartamayo su-aalaha scientifica daqiiqadna lagu tartamayo su-aalaha oo artiska ah ayuu ahaa 216 arday baa ka qayb gashay guud ahaan ardayda tartanka ka qayb gashay ay ahaayeen oo 48 ka mid ay ahaayeen bakiino am binji ay ahaayeen oo ay ahaayeen raacda reeb ay ahaayeen guddoomiye dadaalkaas iyo hawshaas xoog gale ee muddadii tartanku uu soo socday la galay tartanku wuxuu bilowday kowdii bishii ramadaan sanadka 1440 hijriyada ama 6dii bishii may sanadka 2019 waxaa lagu bilaabay laba dugsi dugsiga hanti wadaag iyo dugsiga global baa lagu bilaabay waxaa maalintaas maqnaaday oon soo xaadirin dugsiga hanti wadaag oo la yiri waxaa laga qaaday forfait weliba iyadoo ereygaas forfait maalintaas uu iisoo baxay aniga ereygiisii oo ahaa ereygiisi cilmiga afka soomaaliga oo aan u bixiyey cidla ka hel maalinkaas ayaa lagu bilaabay muddadaas dugsiyadu halkaas markii laga reebo oo cidla ka helka ah oo eber ahaa laba dugsi keliya ah eber helay oo intii tartanku socday magacooda hadda sheegi mayno wax muhiima ma samaynayso mana ku niyad jabinayno laakiin intii kale dugsiyadu haba yaraatee hal su-aal ba allah ka dhigay waxaysan ka jawaabin ma jirin dugsiyadu ka jawaabin su-aalaha isdaba yaalla ardadu ay u diyaar garoobayeen ayaa guddoomiye mudan guddoomiye lasoo waday 12 dugsi baa wareegii u horreeyey 5 wareeg buu ahaa wareegii u horreeyey waxaa haray 12 dugsi 12 baa soo hartay wareegii labaad 6 baa timid wareegii saddexaad 6dii oo dugsi oo isugu soo baxday waxay ahaayeen dugsiga imaam maalig dugsiga salaaxudiin dugsiga al-anwaar dugsiga daarulqudus dugsiga niileyn iyo dugsiga soomaaliya 6daa dugsi baa isu yimid 6dii dugsi baa tartamay waxaa soo baxay 3 dugsi oo imaam maalig salaaxudiin iyo al-anwaar qorituur baa loo sameeyey waxaa banaanka fariistay oo nasiibkiisa banaanka ula soo dhacay dugsiga salaaxudiin oo wareegii 5aad u gudbay wareegii 4aad baa waxaa tartamay dugsiga al-anwaar iyo dugsiga imaam maalig waxaa soo baxay dugsiga imaam maalig ayaa soo baxay kadibna salaaxudiin oo wareegii 5aad u gudbay oo qorituur ku tegay banaanka iyo waxaa isu yimid dugsiga imaam maalig oo al-anwaar kasoo badiyey ayaa isugu yimid wareegii 5aad dugsiga imaam maalig baana marka sidii horeba cabdullahi axmed nurdin kugu sheegay ayaa koobkii qaaday taas waxay ilaahay mahadiis iyo in ilaahay uu nala garab galay su-aalahaas aad arkaysid oo 264 su-aal oo laga jawaabay iyo tartanka oo 4 sano hal dugsi uusan ku noqonin mararka qaar waxaad fiirin kartaa inay isu dheelitir fiican u yahay 4 sano tartanka tv-ga universal uu waday gobolka banaadirna uu maalgelinayay jaamacadda muqdishona 3 sano ka mid oo dambe ay su-aalaha soo diyaarinaysay waxaad u malaysaa in uu aad iyo xoogaa isu dheelitiran yahay taas oo la dhihi karo sanadba dugsi baa xoogga saarayay marka ilaahay baa mahadle ilaahay anagu fadeexaynin anagu ceebaynin cadaaladii iyo maaragtay qoortii labada garab udhexaysay inaan ahayn ilaahay maaragtay ilaahay uu nala garab galay waxaan u mahad celinayaa mar kale 3 hay-adood oo gacanta xoog leh ka geysatay barnaamijkan tartan aqooneedkan inuu ummadda soomaalida waxbarashada iyo aqoonta loo gudbiyo aqoontii dhaxasha laga qaado isla markaana ummaddii aqoonta lagu dhiso warbaahintii oo tv-ga universal ka socdo iyo gobolkii banaadir iyo jaamacaddii muqdisho intaba waxaan kaloo u mahad celinayaa oonan iloobeynin dugsiyadii 24 dugsi maaragtay oo iyaguna tartanka sida wanaagsan uga qaybgalayay oo 24kaas dugsi oo iyagana 24 macalin baa maalin kasta iyagana taagnaa oo maaragtay ardada horjooga u ahaa oo ardada iyagana wadeen macalimiintaas oo joogtada sida joogtada ah noola shaqeynayay oon iyaguna barnaamijkan nala qabtay
oon dhihi karno way mahadsan yihiin maamuladii iyo dugsiyadii arrintan isoo xilqaamay oo in soomaaliya lagu noolay aqoon loona gudbiyo caalamka soomaaliya waxay tahay dugsiyadii gartay ee ogolaaday iyagana aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloon iloobeynin saaxiibo iyagana aan meeshaan marna aanan ka maqnayn sida gaarka ah aan ugu mahad celinayo ustaad cabdullaahi xirsi kulmiye oo ah agaasimaha t v-ga oo aan hal maalin meesha ka maqnayn oo nala joogay mar kasta nala joogay saaxiibkayga garabka midig oo cabdullaahi axmed nuur iyo ustaad maxamed xasan guutaale oo isna jaamacadda muqdishona ka socday guddigana ka mid ahaa oo ayagana garab taagnaa oo intii aan guddoomiyaha guddiga aan ahaa hadda xilkiisii dhacay laakiin maanta uu ku egyahay saa qiyaasayo maaragtay soo garab taagnaa ayagana aad baan ugu macdelinaya waxaa kaloo xubin muhiim ah annaga iyo caalamka oon is arki lahayn ragga ka shaqaynayay oo farsamo yaqaanada ah oo injineerada ah oo ay ka mid ahaayeen injineer cabaas injineer cabdiraxmaan guuleed ninka la yidhaahdo khaalid kofi waaba maogta adaan la sheegin waaba waxaa waaye waa nin waxaa la nin geeda tiriyey oo qurac ka tegey geeda ma sheegin marka kofi waaba number one asaga inaan ka bilaabay ahayd haga raalli ahdo dhammaantiinba inta meesha kasoo qabagashay inta maqlaysa inta daawanaysa iyo intii saaxiibada ahayd oo bahda waxbarashada ay ka wada mid tahayba waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin inta ayaan uga soo baxay assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدوميها قدية برا الشيخ عبد الله بنقالش أدب وماتين هاي sida ugu mahadiyay dhammaan dadkii tartankan qaybta ka lahaa waxaan u yeerayaa kaafiyo maxamed oo ka mid ahayd ardaydii tartantay kelmad kooban si aan barnaamijka aan uga faa'iidaysano waqtigeenna iskuulka salaaxudiin dhammaan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo dhammaan maamulada muqdisho iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed wasalaama dhammaan waxaa ka mid ah tv-ga universal jaamacadda muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo iskuullada meeshaan ka tartamayo 24 iskuul uu sheegay ustaadka iyo ustaad barayaan ka tegin ustaad cabdulaahi dhammaan iyo guddoomiyaha agaasimaha aan dhehe jaamacadda muqdisho wasalaama waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ugu horeyn tv-ga universal oo tartanka isku keenay dadka tartamayay oo meeshaan in laga tartamo aan ka tartamno lafdhabar u ahaa iyo gobolka banaadir oo taabagelinaya tartankan iyo jaamacadda muqdisho oo su-aalaha inoo soo diyaarisa dhammaan way mahadsan yihiin waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta iskuulka aan ka socdo iskuulka dugsiga salaaxudiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin idinkaa intaas nasoo garab qabto inaan heerkan soo istaagno waad ku mahadsantihiin marka dadaalkiina dheeriga waxaan u mahad celinaa waalidiinteena dhammaan way mahadsan yihiin ayagana waxaan u mahad celinaa kale dhigeena axmed gure oo koob ka qaaday waan idin hambalyeena oh sorry maya waxaan u mahad celinaa haligaraal noqdo waxaan u mahad celinaa imaam maalik dugsiga imaam maalik waxaan leeyahay hambalyo waxaan u mahad celinaa oo kale walaalaheen dugsiga alanwaar waxaan leeyahay idinkana waxaan leeyahay soo dadaala insha allah waa gaari doontaan intaas ayaan kelmadeeda kusoo gabagabeynaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كافي محمود aad bay umahadsan tahay ardaydii firfircooneed ayay ka mid tahay tartan ka qayb galay waxaan u yeerayaa markana mahad maxamed ardayda alanwaar بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين دمان مدن قدوميها قبل كبنادق أقاسمها تيفيغا أستاذ تيك توك ليبان دمان معلمين تا معمولة يقدر يومد الصوماليات عندكم السلام السلام عليكم ورحمة الله سلام كدب waxaan u mahad celinaa oo mahad celin bilow iyo dhammaad lahayn waxaa iskale allah subxaana watacaala allah soo meeshaan anagoo caafimaad qabna nagu kulmiyey allah saa mahad iskale waxaa sidoo kale u mahad celinayaa maamulka gobolka banaadir oo guddoomiyaha maanta inaan la joogo
oo barnaamijkan tartan aqooneedka taabageliyey una istaagay sidii ardada soomaaliyeed aqoontooda sare loogu qaadi lahaa. waa ku mahadsantihiin ayaan idin leeyahay. sidoo kale waxaa mahadsan tv-ga universal oo ududhexaad u ahaa barnaamijkan. sidoo kale waxaan u mahadcelinaha jaamacadda muqdisho oo su-aalaha noo soo diyaarisay. sidoo kale waxaa mahad celin asna iska leh ustaadka gudoomiyaha guddiga oo cadaaladda iyo hufnaanta ka shaqeeyey. aad iyo aad waa mahadsan tahay. waxaan ka socdaa dugsiga Al-Anwaar. waxaan galnay kaalinta 3aad. waa soo dadaalnay. hadafkeena wuxuu ahaa kaalin koowaad, laakiin kolleyba nasiibkaa dadka wax walba nasiibkaa go-aamiyo iyo calafka iyo qadartaa go-aamiso. waan ku faraxsanahay meeshaan aan imaanay. insha allah waxaan mahad celin asna jeclahay meeshaan inaan ugu dego dhammaan macallimiinta iyo maamulka dugsiga Al-Anwaar ex dhamaya sinaagtan oo ku yaala degmada Dharkeley. waxaan leeyahay dhammaan mas-uuliyiinta ugu horeeya gudoomiyaha iskuulka ustaad maxamed cali caseer iyo maamulaha dugsiga Al-Anwaar macallin Saciid Axmed Xasan Maxamuud Fagaas iyo guud ahaan dhammaan ardada iyo macallimiinta. waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaa kaloo mahad celin iskale waalidiinteena oo meeshaan inaan heerkan soo gaarsi inaan heerkan imaan ka dambeeyey. aad iyo aad u mahadsantihiin maamul iyo macallin dhammaan. waxaan leeyahay aad iyo aad idinkugu mahad celinaa. gudoomiyaha gobolkuna waa mahadsan yahay. tv-gan aad waa mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum. waalaikum assalam waraxmatullahi wabarakatu. mahad aad buu mahadsan yahay. waxaan u yeerayaa markana si aan usoo gaagaabino kelmadaha cabdullaahi ibraahim ardayda imaam maalik. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين. ugu horeyn waxaa mahad iska leh allah subxaanahu watacaala. marka xigta waxaa mahad iska leh allah subxaanahu watacaala aan ka dhaafiyeyna allah subxaanahu watacaala oo saakay halkan inagu wada kulmiyey inaga dhiga dad muslimiin ah. allah subxaanahu watacaala waxaan ka baryanaa inuu naga aqbalo soonkeennii aan soo soomnay. sidoo kale waxaan u mahad celinaa waalidiinteenii inagu soo tiyay iyo tacab beeshay dhib iyo dheef intaba. macallimiinteenii ina soo garab istaagay. macallimiinta oo aan yacni tartanka aysan suurtagali lahayn haddii aysan jiri lahayn in la qabto. abaan soomaalida wuxuu yiri iyaga abuuray sanacada lama ogaadeen. mar aan wax yar baabaaraya ayaan waxaan ka arkay hal abuuro soomaaliyeed oo gabaygiisa ay soo jiito marka waxaan rabaa inaan gabaygiisa hal ama laba ka dhaho. maamiya adoogan kadib mudanka weeyaane madadaaliyo nooyaho waa murtina daadshe abaalku mutaystana marna waa idin malin karine waa lagama maarmaan bulsha ay muhataay. masaakiin bilaash buu ku siin mira aqooneede manfaciisa kuma koobi kara meerisyadan gabaye ardayahay bal malabkaas jaqo maraya dhuntiina misigtuu ka jabayaa ninka macallin xeereene muran iyo adoon buuqla iman muuji sida fiican meel mari dhawaaquu ku fara maankuyuu jabin mowlaha ilaahay ka baqa muxamedkii raaca. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa universal t v iyo maamulka gobolka banaadir iyo universal t v tartankii wacnaayo ay noo soo qabteen jaamacadda muqdisho. waan u mahad celinayaa. sidoo kale waxaan kaloo u mahad celinayaa gobolka banaadir oo tartankan taabgelinayay. gobolkan dhaqaalaha nagu dhiirageliyo dhiibaya maalkan aloo dhowr dhammaantii waxba inaan hadalka sii dheeree marow. sidoo kale tartanka markii la wada galabo koox baa ku guuleysata. 3dii koox ay soo baxday Al-Anwaar iyo Salaaxudiin iyo Imaam Maalik waxaynu wada nahnay yani waan wada guuleysanay. tusaale badarka markii la cunayo waxaa lagu soo qaadaa 5 far. 5 farna yani waxay ka dhigan tahay inaan anagu koobka isla wada qaadnay oo yani 5 far markii badarka lagu soo qaado waa la wada cunaa oo 5 koobka inaan isla qaadnay ayaan yani tusaale ugu dhigay. waa 3 far laakiin badarka markay qaadaan oo kala badan yihiin inta badar ku badan. bila tawfiiq hadalka sii mareeyay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waalaikum assalam waraxmatullahi wabarakaatu. aad buu u mahadsan yahay cabdullaahi ibraahim. waxaan u yeerayaa maamulayaasha ayaan siinaya kelmadahooda dabadeedna guddoomiyaha waxaan soo aadi doonaa mas-uuliyiinta kale. waqtigana aan ka faa'iidaysan waxaan u yeerayaa markan
ustaad siciid axmed fagaas maamulaha alanwaar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده waxaan umahadcelinayaa Allah subxaanahu watacaala oo nagu soo kulmiyey meeshaan aadka qaaliga u ah anigoo gudanayno hooshii wacneed oo aadka quruxda badneed ay noo soo diyaariyeen gobolka banaadir iyo universal t v iyo jaamacatul muqdisho. waxaan kaloo umahadcelinaa gudoomiyaha gobolka banaadir aad u mahadsan yahay xaqiiq ahaan howlaha adag oo ku jiro iyo garab istaaga oo aad u garab istaagayo waxbarashada. xaqiiqa waa arrin aad muhiim u ah waan u baahan tahay waxbarashada inay dhiirigeliyo haddayna helin haliyey sidiisa oo kale ah oo dhiirigeliyay haddayna helina waxba mu qabsoomayaan. marka gudoomiyaha aad u mahadsan yahay garab istaaga waxbarashada oo aadka muhiimka u ah. waxaan kaloo mahadcelinaa t v universal t v oo xaqiiqa sameeyeen howl aad u qurux badan. tartamo waa la galaa laka tartamadu kala duwan yihiin tartama idaacadaha ay sameeyaan iyo tartamada ay sameeyaan muuqaalka sida t v universal shaqa iskuma lahan because waxay tilmaamaa universal t v waxaa muuqda ardayga oo saxad aheeda muuqdo. marka aad u mahadsiin xaqiiq ahaan howsha aadka u adag ay qabteen oo quruxda badan leh. waxaan kaloo mahadcelinaa jaamacatul muqdisho oo suurtagelisay su-aalaha xaqiiq ahaan ahayena su-aalo aad u qurux badan oo ahna su-aalo isku mid ah xaqiiqan dhiila tiran. tartamada waa la qabtaa su-aalahana waa la diyaariyaa laakiin waa lagu kala duwan yahay. waxyaala aad inta badan lagu doodo waxaa kamid ah su-aalaha ana weydiiseen iyo su-aalaha iskuulkaas kale ay weydiiseen isku mid ma ahayn. xaqiiqa jaamaca muqdisho maasha allah aad u mahadsan tahay. doodaas marna ma dhicin su-aalaha intaan ka arkayna dhammaantood aad u qurux badnaayeen maasha allah. sababta keenaysana waa jaamacad aad u sareyso xilli badan jirtay shaqaysay xilli adag oo ayna jaamacad ayna jirin. marka maamulka jaamacadda aad u mahadsiiyeen xaqiiqahaan oo mahad celinayna dadaalka adag ay sameeyeen. waxaan kaloo mahad celinaa dhammaan maamulada iskuulaadka gaar ahaan kuwa fadhiyo iyo 24 iskuul oo tartanka ka qayb galeen. waxaan kaloo si gaar ugu mahad celinaa ardayda Soomaaliyeed oo dadaalka adag sameeyeen oo juhdiga aad uga faraha badan la sameeyeen oo akhriska badan oo habina soo jeedeen xaqiiqahaan suurtageliyeen inay maanta tartankan ka qayb galaan. waxaan si gaar ugu mahad celinaa iskuulka Imaam Malik waxaan leeyahay mabruuq Salaaxudiin mabruuq Al-Anwaar mabruuq. dabcan waxaan kaloo mahad celinaa waalidiinta sharafta badan leh qiimaha badan leh oo dadaalka adag ku sameeyeen iyo macallimiintoodii oo juhdiga badan ku bixiyeen oo habeen iyo maalin kor taagnaayeen iyo maamuladooda iskuulaadka. intaa markaan uga soo tago mahad celinta waxaan rabaa inaan si gaara u sheego Al-Anwaar dabcan kaalin saddexaad aan nahay xaqiiqa oo ku faraxsanahay. Al-Anwaar anaga waxyaalaha aad kugu aqoonsado waxaa kamid ah oo lagu yaqaan iskuulka Al-Anwaar oo dadka dhan ay ku wada kasayaan tartamada waaye. tartamadan anaga waxaan ka qayb geli jirnay 2007 ilaa hadda waa wadnaa alxamdulilah. idaacado badan aan ka qayb galnaa. gudoomiyaha gobolka banaadir idaacada kala soo arki doona insha Allah bidnil albari anagoo kaalinta koowaad ah bidnil albari maalmaha soo socda si ilaa ka rajeynayo. marka universal sanadkan anaga ku noo ah hore ugu qayb gali jirin. sanadada hore waa buuxsanta oo baan dhigi jiray alxamdulilah. sanadkan ilaa noo suurtageliyay inaan naqaano tartamayaasha oo universal TV ka tartama. alxamdulilah maalinta saddexaad aan naqanay hadafkeenu saddexaad ma ahayn dabcan laakiin waan rajeynayna insha Allah bidnil albari inaan ka muuqan doono tartamada soo socda hadduu ilaahay yiraahdo. Al-Anwaar dabcan dadku way wada yaqaanaan laga yaabo dadka qaar inaan garanaynin. Al-Anwaar waa sanadkii la soo dhaafay 2017 waxaa lagu xasuustay kamid tahay iskuulkan koowaad galay imtixaankii gobolka Banaadir imtixaankii Muqdisho centralized ka ahay ardayga koowaad Idris Maxamed Cali oo arday Al-Anwaar dhigto koowaad ka bilaabay waliba aan ku faani karno xaqiiqan oo iskuulka la waligiis Eliis aan arkin fasalka koowaad ku bilaabay 12aad uu ku dhameeyay Al-Anwaar uu ka dhameeyay sanadkii hore oo tagay kaalinta koowaad uu ka galay dhammaan Soomaaliya aad ugu faraxsanahay. sanadkan waa rajeynayna insha Allah bidnil albari inaan kaalinta koowaad galno. waxaa sanadkan wax soo kar waxaa kamid ah waa iskuulka kaliya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo mahad celisay amaan badan u jeedisay. waa rajeynaa dhammaan inaan ku aragnay TV meel kasta ay dhigeen oo Facebook-da ay kulli yaalaan. dabcan waa iskuul weyn faca weyn 2004 ayaa la aasaasay. dufcadii 13aad sanadkan ay qalin jibinaysay arday 380 iyo ku arday gaarayaan ay qalin jibinaysay. ardayda dhigatana waa arday 2500 kor u dhaafayo. waxyaalaha noo suurtagelin waxaa kamid ah xaqiiqa ahaan kaalmada aan ka helno gobolka Banaadir iyo meelaha lamid ah waa iskoolka anaga aan diganahay waa iskool dawladeed oo weyn dhammaasna cartana la yiraahdaa. waxyaalaha suurtagelay kamid ah iskuulku inuu iskuul weyn ahaado oo dad badan gacanta ku hayo
marka aad ugu mahad celina xaqiiqan dhammaan yaan war idinku daarina aad ugu mahadsantihiin jazakum allah khayran aadan ugu faraxsanahay inaan maanta hortiina kasoo muuqdo jazakum allah khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ سيد أحمد فقاسات بو مادسين وحنو يريا مركنا محمد ميراء عمر معمولها سلاح الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوميها قبل كبنادر أنا دقل مغرب إنجينير يريسو مسؤولين تا تيفي يونيفرسال مسؤولين تا جامعة مقدشو مسؤولين تا سكولة كفر ديال كان هي أرضها دمانتين با يصبح الصفحة دمانتين با وإن سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامكم بعد يوحنا رماوي ما هاد علينا هاي إن اللو ذاقو barnaamijkan siduu kusoo bilowday iyo sidiisa ahay dadkii hore oo ka hadlay oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yirisow oo ah kulley qof walbaaba de waxa waaye waxa uu asagu yaqaan ayuu hormariyaa marka injineerku waa nin aqoon-yahana waa madaxda ku farakutiriska oo soo martay gobolka banaadir oo aqoonta leh runtiina waa inay ka muuqataa aqoontii waa inay ka muuqataa gobolka banaadir waan u mahad celinayaa jaamacadda muqdisho telefishinkana sida ay barnaamijka u wadeen aadan ugu mahad celinayaa ardada iyo mas-uuliyiinta kale ee iyaguna barnaamijka aad iskuulaadka kalena sidaas oo kale ayaan ugu mahad celinayaa waxbarashadu waa kulley waxyaalaha ugu muhiimsan ee lagu tartamo waxaa bulsho ka hormartaa sida hadda guddoomiyaha oo gartay waa un waxbarashada haddii waxbarashadu ay hormarto bulshada horumaraysa dhibaatooyin kale way yaraanayaan gobolka banaadir waxyaalaha dhibaatada haddii barnaamijkan guddoomiyaha iyo hay-adaha kale ay hadda bilaabeen uu hormaro waxaa imaanaysa in maaragtay dhibaatooyinka o dhan ay soo yaraadaan waa anoo ka faa'iidaysanayay fursaddan guddoomiyaha maanta markii la arkay isma helayno waxaan dhihi lahay gobolka banaadir guddoomiye waa weynaaday ma aha markuu ku ekaa ii sheeg degmada kaaraan iyo baarwax markuu ku ekaa iyo degmada hodan iskuulaadka ku yaalna waa kuwii burburkii ka hor ku yeelay example haddaan usoo qaadano degmada tarabuunka iyo taredish inta udhexaysa iskuul dawlo ma ku yaallo waa dad dadaalay iyo hay-ado iyo wax guryo barbareem la dadaalay waayo waxbarashada wax lagu wadaa marka arrintaas inaad u istaagto oo aad kobciso iskuulaadka aad ballaariso haddaan degmada kaaraan iyo gobolli inta udhexaysa mujtamaca degan iskuul kuma yaallo yaqshid haddaan idhaahno iyo ilaa iyo daarusalaam iskuul dawlo kuma yaallo waana degmadii way badatay way ballaaratay marka barnaamijyadaada dambe waxaan rajeynaynaa inaad qorshaha dhow ku darsato in sanadka dambe inay inta iskuulaadka hadda dhisan intoo kale aad ku dartaan oo barnaamijkaas aad iyo aad u dhiirigelisaan waa dadaashaan oo degmooyinka waxaan maqalnaa guddoomiyaha waxbarashada waxaan maqnaa guddoomiyaha isboortiga guddoomiyaha dhalinyarada guddoomiyaha amniga degmooyinka iyo laamahana waa in macnaha ka jira maamul ah guddoomiyaha waxbarashada xogayaha waxbarashada ilaa waax inuu gaaro si ay u kacdo bulshada ay usoo kacdo ay uga baaba'do waxyaalaha xun waxaan kaloo ka faa'iidsanayaa guddoomiye magaalada badanaa waxaa kusoo batay waxyaalahan muqaadaraadka inaad la dagaalantaan oo aad iyo aad ula dagaalantaan waxyaalahan sida masalan baa ii sheega xashiishka waxaa la yidhaha taabuuga loo yaqaano wax xashiishada la yidhaahdo waxay saameyn ku yeelatay ardadii haddii saameyn ku yeelatana waxay dhibaato keenaysaa markaas in bulshadii in badanoo kama ay fasahado marka arrintaasna meelaha laga keeno ilaha laga soo dejiyo iyo dadka ganacsada inaad daba gashaan oo arrintaas aad maarata fursaddan anoo ka faa'iidsanaya aan rabaa inaad saas aad maaragta aad fursaddaas maadaama aqoonta aad fahmayso ay maanta ay taagan tahay dugsiga salaaxudiin oon ka socdo waxaa la aasaasay 2003 1993 26 sano ayuu jiraa degmada warta nabad uu kamid yahay uu ku yaalaa iskuulaadka qadiimiga ah oo burburkii iyo dhibaatadii ugu darnaa xaalad dalku jiray waxbarashada soo wada ayuu kamid yahay waa u mahad celinayaa waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalkaas ay soo sameeyeen anoo ku hadlaya maamulka iyo macallimiintii iyo dufcaddii gaar ahaan nooga qayb gashay iyo macallinkoodii hogaaminayay macallin maxamed sidoo kale iskuulaadkii ku guuleystay kaalimaha koowaad iyo saddexaad ayagana inaan saas ugu mahad celiyo waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waqtigaan haye barnaamijkan universal inay sii wado gobolka banaadir iyo mas-uuliyiintiina inay sii horkacaan arrintaas oo lasii dhaqaajiyo la gaarsiiyo ilaa degmooyinku ay ku tartamaan aad arrintaas dhiirigelisa guddoomiya degmooyinku inay ku tartamaan waxbarashada
tartanka degmooyinka isboortiga ayaa jira, tartanka degmooyinka waxbarashada waa inuu jiraa, si degmooyinka nafaantu ay u tartamaan waa inuu waaxyaha ka jiraa. barnaamijkaasaan rabaa inaan macnaa si looga baxo burburkan iyo dhalashada oo mujtamacu oo u gaaro maaragtay isha haddii waxbarashadu baato waxaa yaraanaya barnaamijka. aad aan u mahadsantihin waqtigaan ku xisaabtamaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد محمد مير عمر aad buu mahadsan maamulaha Salaaxudiin. waxaan siinayaa markana kelmadda dhinaca maamulada ee ugu dambaysa Ustaad Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf, maamulaha iskuulka Imaam Maalik. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد قدوميها قبل كبنادر إنجنير عبد الرحمن يريسو أقاسيمها برقة أفريقيا عبد الله حرسي كلمية وابتكاس على جامعة المقدسة الليبان حسين عيسى قد جيت ترتنكبودي وقامين أي قدوميه استاذ برا يسك حراها دوكسية سراء تي في يونيفرسال موديل جيدي iyo marti sharafka kale la joogta iyo ardadii iyo maamulada la jooga iyo farsamayaqaanada TV-ga iyo baad haddana daawanaysa oo dhan waxaan ku salaamay salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaas kadib waxaan madcelinayaa Alle subxaanahu wa tacaala oo barnaamijkan noo suurtageliyey min bidaaya ila nihaaya noo suurtageliyey ayaan u madcelinayaa. waxaan ku intaas kadib u madcelinayaa gudoomiyaha ama maamulka gobolka Banaadir oo barnaamijkan taabagelinayay oo la-aantiisa haduusan jiri lahayn barnaamij ma qasoomeen tacliin iyo arday saddex gasho iyo midna ma jireen. marka barnaamijkaas ay runtii u taagan yihiin oo sanad aysan ka nasanayn oo markasta ay rabaan inay barnaamij socodsiiyaan aadaan ugu madcelinaya. waxaan ku madcelinayaa TV-ga Universal oo taabageli macna tabinayay barnaamijyadan oo laftigiisa markasta u taagan oo laftiga hadduu sida cad kale iska noqon lahaa dhegeysi noqon lahaa xiisaba ma yeesheen. laakiin TV caalami ah adduunka oo dhan min geeska qaarad la daawanayo inay barnaamijkan ku dhiiradaan oo saa u sameeyaan ayagoo aada ugu mahadsan yihiin. waxaan ku macilinayaa jaamacadda muqdisho oo laftigood su-aalaha soo diyaarinaysay. su-aaluhu wax sahlan maahan, dadka yaqaana tartamada ama ardada aada u fahmi kara. su-aal isku dheelitiran oo 1 daqiiqo su-aal dheer haddii la keeno oo ardaygu saac ku shaqeynayo wax macno ma keenayso, ardayga waa gafayaa. marka ardayga ninka guddiga diyaarinaya xigmadda u isticmaalayeen iyo nidaamka su-aal usoo diyaariya iyo amnigooda runtii wax dhaysa kale ma ahayn. marka ayagana barnaamijkaas sida usoo diyaariyeen iyo si usoo jeedeen jaamacadda muqdisho aada ugu madcelinayaa. guddiga laftigiisa oo tartanka qabanaya garsoorka ahaa oo halkaan har iyo habeen u fadhiyey oo gudoomiye barre uu maarata maamulayay ayagana aada ugu madcelinayaa. maxaa yeelay la-aantood garsoor dusi jiri jireen meeshu ciyaar bay iska noqon lahayd. marka barnaamijka ay runtii ayaga laftigooda ay ku dadaaleen aada baan ugu madcelinayaa. axmed abshir geedi oo ah ninka keliya isku xiraya iskuulaadka iyo TV Universal caalamiga ah oo har markaas ardayna soo wacay beri tartanaa leedihiin jawilka waa soo dhacay meeshay soo diray laftigiisa meesha kama maray. ninkaas asna aada ugu madcelinayaa. dhammaan iskuulaadkii kasoo qeyb galay oo 40 iskuul ahaa ayagana aada runtii ugu madcelinayaa. waxaan kaloo si gaar ugu madcelinayaa 3 iskuul ee semifinaalha yimid oo sida Imaam Maalik iyo Salaaxudiin iyo Al Anwaar. 3daasna ugu madcelinayaa. siduu wiilka hore u sheegay waa dad baras la cunayay waxay kala dheeriin lama arko. nasiibka insha Allah meesha ha ahaado. anoo ku hadlaya magaca mu'asasada Imaam Maalik waxaan ku faraxsanahay guusha ay soo hoyeen ardada matalaysay dhammaan dugsiyada hoos yimaada mu'asasada Imaam Maalik. macna dad baan soo xulnay oo dhowr iskuulada la ka keenay. marka ardadaas matalay mu'asasada runtii guusha ay soo hoyeen aad baan ku faraxsanahay. waana markii labaad oo runtii anigu halkaan aan ka hadlo TV aan ka hadlo oo mar baan kaalintii labaad galnay si hadda Salaaxudiin u joogaan kaalinta labaad anaga mar baan soo reexay. marka wax badan baan soo rafaadaynay. marka halkaan waa markii labaad aan ka hadlayno maanta nimid meesha. marka insha Allah halkaan soo gaarnay. taasna waxay ku tusaysaa sabarka haddii inta kaalinta labaad laga basho haddaan iska bixi lahayn duurka si galnay ma dib aan fikrin waxaan kursiga waa dhimay. marka kursiga waa dhimay yani marka ma insha Allah halkaan soo gaarnay. marka intaas waan ku faraxsanahay. haddana maantana waxaan ka hadlayaa waa kaalintii koowaad anoo u hadlaya halkaan taaganahay waana farxad labaad insha Allah. tartanka kama marna sidiisa horta aqoon iyo nasiib. adoo aqoon leh hadduu nasiib ku saaciid waayo waa khadka ka dhacaysa. marka ardadii hartay iyo kuwa laftiga hadda kama galay aqoon laguma reebin nasiibkaa reebay. marka tartanka waa isla wada leeyahay. kuwa soo baxay iyo kuwii kale dhammaanba waxaan leeyahay dhammaantii waa mahadsantihiin.
warkii waa kooban yahay waxaan rabaa tartanka waxyar laga faa'iiday inaan dul maro runtii jaamacadda muqdisho horena usoo sheegay su-aalaha qaabka u diyaar qaar runtii aad cajiib badan tarbiyada kale siirada nebiga kale iyo wax la xiriir oo dhan iyo axkaamta waa xashkaa la keenay marka runtii ardayda xashkii markay arkeen axkaamtiisi maxaa waajibaadkiisa iyo ruknikiisa kala sheega inaa la taagay diifkan waa la soconay marka axkaamtii iyo sunnadii iyo siirada nebiga aada loogu baranayay luqadda soomaaliga oo erbixin fiskiskoo kale aada runtii ugu badan yahay oo ardaydu marka xasooga filasaa dhirirkeedu nahay war xasooga muxuu ahaa marka erbixin badanna waa laga helay manhajkii hore soomaaligana waa lagu noqday weli wadanka weysan suurtagal maaha dadka inay soomaali wax ku bartaan iskuulaadka dusir ku bartaan jacad ku bartaan ba aqoontii sii siyaada leed gudoomiye waxaan ilaa barnaamijkaas haddaad socsii kartaan in manhajka soomaaliya luqadda soomaalida wax ku bartaan waa ficnaan leed oo qofka si daqiiqa u fahmi lahaa maadadaas oo runtii aada u noqon lahayd waa runtii waan ku faraxsana intaas kadib dhaqankii taariikhdii dalka goboladii si hadda su-aal la isweydiina oo kale ragaan aqoon artigii waa gubaxay marka la yidhi dad baa ka faa'iida marka dhaqamadaas laga baranayo waa runtii waa wax aada wanaagsan warkii ma dheer waxaan kusoo gabeynaya rabaa insha allah inaan si khaasa oo aan ugu mahad celsho si gaara weliba ilaahdo agaasimaha bariga afrika cabdulla xirsi kulmiyo oo ah nin runtii shaqadiisa aada iyo aada active ugu ah kana adag ardayna ku dhex jira hubiya siwa bar u sheegay intaas oo dhan waxay ardada mid u baaraa oo hubiya in iskuulka ka tirsan yahay in maaragtay sababtu maaragtay hataa masawirkiisii iyo hala soo raaciyo marka xataa finaal lasoo dhexdhi jiray ardaygan daladu ka tirsan yahay oo kale inuu baaro rabaa waayo waxaa jirta iskuulaadka ficlaha ku jiro marka arkaan waxbay liitaan arday soo ijaaranayaan way leeyihin war ardayaan u baahana marka waa in marjicooda la raadshaa oo ilaa maarata fbns iyo ama saafi meeshu ku jiraan marka weli waxaan ku diri lahaa cabdullahi xusaan ku diri lahaa ardayga foonfooro u badan yihiin inay si fiican xaqiijinta ugu sii dadaalaan marka arrintaas ku sii dadaalaan barnaamijkaas cabdullahi runtii aada sawirkiisa iyo ardaysa ugu dhex jiro waxaan kaloo runtii anaa xusuus ugu reebtay sanadkan kaalinta laba gelaynay waxaa jirtay in iskuulkeena oo laba arday oo kamida wiila gabar iyo iskuul kale gabar ahaa in loo ballan qaaday minxo masar ah markii loo ballan qaaday waqti waa dhawaa cabdulla xirsi wuxuu ahaa ninkii keliya inta orday iyo baasabor deg deg u sameeyey baabuurkiisa ku qaaday usoo sameeyey si keys inta ku baxay oo london tago inta maalin habeen soo wacay nambarkeyga saaxiibo maa isman aqoon nambarkeyga soo raadsaday ardada iskuulka dhiganaysa iskuulka kale 3 arday waxaan ka codsanayaa in aad qof hebel u geysid si barnaamijka loo dhameeyo barnaamijka waa isku xiray laakiin cilada soo baxday waxaa leeyahay masar beriya dadku qaadaysa adinkana ma haysataan shahaadadii iyada ma soo bixin laakiin hadda inoo taaganta marka hadda codsanayna hadda codsanayna dadkii waa sidii taagay baasaboorkii wixii waa haystaan shahaadii waa haystaan marka insha allah waa bisalaamintii salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan ustaad cabdiraxmaan sheekh yuusuf maamulaha imaam maalik kelmadiisa dhinacii mas-uuliyiinta ayaan aadaya markan si aan waqtiga u beeqaamino waxaan markan siinayaa doctor liibaan xuseen ciise oo ka mid ah xubnaha sare ee jaamacadda muqdisho ana la taliyaha gudoomiyaha golaha sare ee jaamacadda wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd run ahaantii anoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha jaamacadda muqdisho ahna la taliyihiisa waxaan aada ugu faraxsanahay tartankan ee jaamacadda muqdisho 3 sano ka qayb galaysay waxaa aada sharaf iigu ah maanta inaan uu nala joogo gudoomiyaha gobolka banaadir ee duqa magaalada injineer Riisow waxaan aada sidoo kale aan u salaamayaa agaasimaha bariga Afrika ee TV-ga Universal Ustaad Abdalla iyo dhammaan fariiqii iyo ka shaqeynayay groupkii ka shaqeynayay hawshan oo gudoomiye Barre iyo Ustaad Abdalla iyo dhammaan guddiga ka shaqeynayay waxaan aada ugu mahad celinayaa gudoomiyaasha ama maamulada dugsiyada sare ee maanta yacni keenay ardadooda sabab ugu noqday inay yimaadaan madasha yacni lan waxyaalaha ugu muhiimsan ee iskuulka ama mu'asasa wax baranaysa waa in ardadaada aad keeni kartaa madasha arday aanan hubin ma aad keenaysid madasha marka aadan ugu mahad celinayaa juhdigooda iyo macallimiintii soo baray iyo waalidkii gadaashood taagnaaba run ahaantii aadan ugu mahad celinayaa runtii tartanka oo aqoonta lagu tartamo wax ugu fiican waaye waana waxa lagaga baxo ummadda duruuf kastaba ay ku jirta tacliin baa lagaga baxaa marka mudane gudoomiye furidii tartankana
gudoomiye ku-xigeenka ayaa nagala qayb galay furitaanka oo arrimaha bulshada basma caamir run ahaantiina waxaan isleeyahay sida uu ku bilowday iyo si fiican buu kusoo dhammaaday marka tv-gana waxaan uga mahad celinayaa inuu bisha Ramadaan uu kusoo aadiyey in aqoon lagu tartamo waa cibaado weyn in aqoon lagu tartamo oo la sameeyo waa wax fiican waa caado fiican marka caadada ay wadaan waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inay aad ugu sii dhiiradaan anaga jaamacadda Muqdisho insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan anagana kaalinteena aad aan u dadaalno mar kasta marka ka dambeys inaan sii xoojino wax allaale meelihii gaabis iyo haduu nooga yimaado inaan xoojino waxaas oo dhan insha Allah waan ballan qaadaynaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku faraxsanahay iskuulada gobolka Banaadir ee maanta kalsoonida siiye TV-ga kalsoonida siiye jaamacadda Muqdisho kalsoonida siiye gobolka Banaadir in barnaamijkan la qayb galaana aadan ugu mahad celinaa dhammaan 24 iskuul ee ka qayb galay waxaan si gaar ugu mahad celinayaa iskuuladan saddexdan iskuul Imaam Malik iyo Salaahuddin iyo Al-Anwar ee ku guuleystay kaalimaha oo ku guuleystay marka waxaan leenahay insha Allah waa fursad hore u soconaysaan hal sii socdo waxaan munaasabadan aan jecelahay inaan uga qayb qaadano sidii caadada noo ahayd jaamacadda Muqdisho inay iyadan dhiirigelinta weyn waxa iska leh gobolka Banaadir laakiin anaga qaybteena waxaan isleenahay su'aalaha kaliya ayaan ku ekeynay dhiirigelinna kalena aan ku darro marka sidaan yeeli jiray saddex arday oo kaalimaha saddexdan iskuul Imaam Malik iyo Salaahuddin iyo Al-Anwar marka kaalinta koowaad kuliyadda dhaqaalaha qaybta statistics-ka oo maanta dalka uu aad ugu baahan yahay ayaan mataqaanaa jaamacadda guddigeeda kolka isla garteen isla yiri in abaalmarin looga dhigo qaybta labaad waa kuliyadda political science-ga iyo public administration-ka qaybta international relations inay kaalinta labaad ay noqoto qaybta saddexaadna waa kuliyadda aadaabka iyo culuumta insaaniga qaybta journalism-ka iyo information-ka oo la rabo warbaahin xoog badan in la soo saaro sida TV-ga universal oo kale marka insha Allah saddexdaas kaalimood biidnillah waxa aan mar walba sidii caadada ahayd la soo marsiinaya TV-ga universal iyadoo dariiqeedii uu ku imaan doono insha Allah aad iyo aad baan hambaliyadaas idin soo wada gaarsiinaya hambaliyadana waxa gadaasha geesiyada aanan muuqan oo mar walba joogo waa waalidkan waxaan leenahay hanii'an lakum waxa waa farxad maanta haduu ku arko wiilkaaga ama gabadhaada oo shanta qaaradood laga daawanayo oo ku guuleysta qadiyadan waa arin muhiim jiddan aniga saan hore u sheegay ana ardada booskaas oo kale waan fadhinayay anoo tartamay ana fadhinayay oo waxa noogu weyneed national theatre-ka inaan soo gaarno waan xasuustaa ana waan ka qayb galay tartamada national theatre-ka ayaan soo fariistay marka waa meeshii noogu sareysay laakiin TV weyn oo saano kale u baahiya caalamka ma helin marka fursadaas waana dheertiin aad u mahadsantihiin jazakumullah khayran marka waxaan leenahay aad iyo aad u mahadcelinayaa TV-ga iyo gobolka Banaadir oo gudoomiyaha uu hogaaminayo iyo dhammaantiin maamulayaasha ku guuleystay kaalimaha iyo kuwa kale ee dadaalay waa mahadsantihiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh buu mahadsanyahay waxaan seenayaa kalimadda xigta agaasimaha TV-ga Universal Bariga Afrika Abdullahi Xirsi Kulmiye dabadeedna waxaan noo soo xiri doona gudoomiyaha gobolka Banaadir aan Duqa Muqdisho أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mahad waxay u sugnaatay rabbana subxaanahu watacaala oo nabad noogu bilaabo bisha ramadaan tartankii nabadna noogu dhameeyey maantana aan u fadhino xiritaankii barnaamijkii aan soo wadno bisha ramadaan waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka Banaadir oo uu nagala joogo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo runtii xaaladda ay magaalada ay ku jirto iyo wadanku soo u jeedo xaaladda ku jira ogtihiin waqti badan geliyay tartankan in ardadan 24 iskuul ku tartamaan 216 arday ee halkan timaado bisha ramadaan yani ina weydiinaya maalin kasta oo lahaa xagee wax marayaan ardada xaalkooda ka waran ni waqtiga adagoo magaaladuna ay xirxirnayd haddana ardadu inay yimaadaan oo ay tartanka ka qayb galaan
xaaladooda abni iyo tartanka soo socdo aan isxuduureysanayna markastoo lahaa dhiiro gelinay oo lahaa ka warhay ha ka daalin ee la soco mudan guddoomiye aad baad u mahadsan tahay runtii waa kaaga mahad celinayaa sidoo kale guddoomiyaha jaamacadda ee mas-uul ka socda doctor liibaan oo ah ninkii asaga nala bilaabay tartanka hal sana markaan wadna sanadkii ku xigay ayay nala jaan qaaday jaamacadda muqdisho oo runtii aan isleenaha iyaduna waqti badan ayay gelisay su-aalaha markii laga fiiriyo ammaanadooda iyo isku dheelitirka ardaduna ay ku qanceen markaan usoo wareega ardadii ka qeyb gashay tartanka 216 arday meel kastoo ay joogaan waa u mahad celinaynaa iyo macalimiintii maamuladii ku dhiiraday inay ardaygooda goobta keenaan oo yidhaahdaan waxaan soo barna waa kan halla imtixaano wixii nooga soo baxaano ku qanacsanna iyaduna waxay ahayd geesinimo dheeriya oo wax la heli karaan ahayn marka waad mahadsantihiin runtii waxaadna tusteen yani annagu waxaan lahayn keliya abaabulka waxaanu lahayn isu keenidda iyo eerinka ayaanu lahayn laakiin idinka waayo dadka laga rabay waxa rasmiga inay ka yimaadeen haddaan nahay t v-ga universal mas-uuliyiinta iyo board of directorska milkiilaha iyo shaqaalaha bisha ramadaan ayaan go-aansanay in ummadda muslimiinta ee soomaalida ah dhagahooda ay ku dhacaan wax khayr leh waxaan joojinay dhammaan arrimihii maxaa lahaa siyaasadda ahaa wararkii siyaasadda ahaa wax allaale wixii muusig ahaa waxaan usoo jeedinay inaan qabano tartanka qur-aanka kariimka oo la socday tartanka dugsiyada sare iyo kan dugsiyada sare waxay macnaheedu ahaydna dhinacna waxay ka ahayd yacni in la kor yeelo qur-aanka kariimka oo ardadu 114 ay ku tartamaan ka yar 15 sano dhinac kale waxay ahayd in la muujiyo magaaladan inay ku nool yihiin arday wax baranaysa oo aanay ahayn keliya magaalada qaraxa ka dhacay dhibaata ka jirta in la beeniyo runtii dadkii nala beeniyana waxay ahaydeen ardadii iyo maamulkii kasoo qeyb galay ee 24 iskuul ahaa ee ay ardada dibadda joogay dad aqoon-yahana dibadda joogay ay kasoo mahad celiyeen oo ay ka jawaabi lahaayeen su-aalaha qaarkood arday u k joogtaan ka jawaabi karan marka runtii waa idin mahad celinaynaa geesinimadaas iyo dadaalka aa muujiseen iyo bilicda magaalada ka muujiseen waxaa intaa dheer mudan guddoomiye isdhexgal 216 arday halkan isku barata tartanka intuu socday iyo mas-uuliyiintii la soconaysay iskuul kasta iyo intay daawanaysa oo hawada ka baranaysay runtii waxay ahayd yacni wax weyno u ah soomaalida inta badan maamuladu iskuulaadku xaafaday ku yaalaan xaafad iskuulka kale maysan aqoon hadda waa arkaysaa maaragtahay aqoontooda iyay barteen isbarashadooda waxay ahayd wax weyn midda ustaad cabdiraxmaan uu sheegay waa run ardadaasi waa jiraan kuwo kalena hadday joogaan waxaan ku faraxsanahay inuu guddoomiyihii nala fadhiyo maantay yahayna nin arday ahaa ustaadka waxoogaa inaan ka yaraan u malaynaa waa run guddoomiyaha ma aadahayo guddoomiyaha wax badan aniga ustaadka naga wenya laakiin waxaan ahayn ardadii tartamada ka qayb geli jiray ee la keeni jiray inay tartamaan loo keeni jiray maxaa la isheeg maxaa la lahaa kadis guddoomiyuhu wuxuuba ahay macalimiinta wax sixi jira oo maleyna haddaana khaldanayn wixii aan dabaqayna oon rabnaa inaan dabaqno oo ardadina ay soo gaaraan annagu waxaan t v-ga bilaabo ugu horreeyay live inay ardada ku tartamaan alxamdulilah tabliiqaasu waa meel maray hadda idaacadihii t v-do dhan live ay usoo fadhiisayaan ardada awal degmooyinka on halow kaaraan halow aala dhihi jira hadda ardadu way fadhiisaan waxaan arkay arday tartanka ka qayb gashay ee haddana tartan kale u ordaysa marka waxaan rabnaa haddana one step forward in aada mudan guddoomiye oo gobolada soomaaliya tartan aan ugu qabano magaalada muqdisho ardadooda taasna waxaan rabnaa inaad ku darsato noodkaaga arrinta abaalmarinada guddoomiya horta nala jooga mar labaad oo ku celina mana guddoomiya ardadan iyo ardada maqanba waxay sugayaan qeybtii hore way arkeen dadaalkaagii dhiirigelintaadii oo maanta a u fadhiso qeybta dambe waxaa la rabaa arday hooyadood iyo aabood ayna waxba ka bixin oo gobolka uu ka bixiyey oo hanti dowladada geliyey si biri loogula xisaabtamo oo waxaan meesha annaga u fadhino waa annaga dowladaa waxna gelisay daynaa nala ku leeyahay daynkii ma gudi karan lakin waa isku dayeynaa inaan ula dhowaano marka mudan guddoomiye waxaan kaa rajaynaynaa horena aa u ballan qaaday maamulkaaga adoo jira china mase jabaan ay ahayd uu ballan qaaday guddoomiyuu yiri ardada soo harta waa siina jaamacadaha gudaha dibaddana waxaan rajaynaya wix ilaahay ka soo qaaday wuxuu heli karo inuu dadaalka intaa yar noogu daro waa soo koobaa waqti badan kuma luminayo waxaan u mahad celinaa tiimkii igala shaqeeyey ama nagala shaqeeyey ee ahaa guddoomiyaha macalin bare
cabdullaahi axmed nuur ustaad guutaale axmed abshir geede oo ahaa isku xiraha iskuulaadka oo in badan geliyey ilaahay khayr ha siiye iyo tiimka farsamada guuleed iyo ninka la wiilka yarka kofi iyo cabaas iyo ninka kale odaga naga maqan cabdiraxmaan mudane guddoomiye waqtiga qaaliga waa kaga mahad celina waa soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiye kusoo dhowo bismillahi raxmaan raxiim dhammaan horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan halkan si gaar uga mahad celiyo t v-ga universal oo runtii cabdullaahi xirsi wakiilka bariga ee bartamaha africa iyo cabdullaahi axmed nuur iyo dhammaan shaqaalaha t v-ga oo runtii suuro geliyey in barnaamijkan oo quruxda badan ee waxbarashada la hirgeliyo waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo doctor liibaan iyo jaamacadda muqdisho oo runtii jaamacaddu waa hooyadii dib usoo nooleysa waxbarashada dalka ayagana runtii bulshadana ugu ogtahay waana ku ammaanan yihiin welina ilaa iyo hadda joogtay waxbarashadii wada doctor liibaan oo isagana si qaas sanadkii horena halkan wada fadhinay mar walbana diyaar ah marka ayagana si gaar ayaa rabaa inaan uga mahad celiyo intaas waxaa sii dheer maamulada dhammaan 24 iskuul ardaydooda u soo diray inay kaalintan ka qaataan tartankan la-aantoodna aysan suuragal ahayn ayagana aragtidooda dheer oo fursad ay siinayeen ardaydooda waxa keliya la bara maaha ardayga waxaa la rabaa in loo diyaariyo in beritoole uu kaalin mugle ka qaato bulshadan iyo sidii wax loogu qaban lahaa marka waxyaalaha ugu horeeya ardayga lagu tijaabiya waxay ka mid tahay tartamada noocan oo kale ah oo isdhexgal u noqotay suurto gelisay in caalamka o dhan laga fiirsado universal t v maaha keliya dalka gudihiisa waxay fursad u siisay arday soomaaliyeed oo jooga london ama canada ama maraykanka inay daawadaan dhigoodii oo waxbarasho ku tartamaya taasna waxay sumcadda kor ugu qaaday soomaalinimada iyo ardaydeeni oo runtii u baahnaa in la ogaado in badan baa aaminsan waxbarashada dalka ka jirta gaar ahaan waxbarashada caasimadda inaysan waxbarasho tayale ahayn laakiin haddana barnaamijyada noocan oo kale waa kuwa dhiirigelinaya waxbarashada dhiirigelin u ah waalidka naftirkiisa inuu dhaho alla leh waxaan rabaa ardaygeyga wiilkeyga ama gabadheyda inay ka muuqdaan adduunka dhan laga arko iyagoo su-aalo ka jawaabaya iyagoo tartanka kaalin ka qaadanaya intaas waxaa sii dheer waxay ku baranayaan ardayda halkan timid oo 216kaba xirfadaha oo iskuulka markay ka baxaan ay u baahan yihiin ama jaamacadda ha tagaano jaamacadda waxaa u bilaabanaysa waxa la yidhaahdo research ama daraasadeyn daraasadna ma dhacayso qof keligiis inta meel iska fadhiisto daraasad sameeyo waa inuu la falgalo dad kale waa inuu hay-ado kale raadiyo waa inuu tago library buwaagta u baahnaa raadiyo dadka aqoonta uu bidaayo uu soo wareysto iyadana isdhexgalkaas ay isdhexgaleen oo qofkii aqoonta qofkii kale iyo la isweydaarsaday qof walba wuxuu yaqaano ku biiriyey waxay tustay ayagana in wadajirku uu ka macno badan yahay kelikelida iyadana waxay xirfad kale ayaga dhexdooda ay ku baranayeen marka runtii annaga maamulka gobolka sababta aan u dhiirigelinayn ardayda iyo aqoonta iyo waxbarashada waxay tahay waxaan rabnaa in dalkan uu helo aqoon-yahano xirfad leh oo ka tarjuma dalkan sumcaddiisa kor u qaada isla markaana caalamka islaamka tusa in soomaaliya weligeed bay ahaan jirtay waddan runtii ka dhex muuqda sumcad iyo karaamo kuleh lagu dhex yaqaano taasna waxay ku imaan karta waxay tahay runtii waxbarashadoo la xoojiyo waxaan ku faraxsanahay runtii mas-uuliyiintii maamuladii halkan 3 iskuul ee halkan ka hadleen ay sida quruxda badan usoo bandhigeen una cabireen in aragtidoodii ay hirgashay oo ayagii joogitaankooda halkan nala joogaan ardaydii ay ku baraarujinayeen ku dhiirigelinayeen iyadoo weliba caqabado jiro tartankii sida uu sheegay cabdullaahi ee marmar caqabado iyo imaanayeen haddana adkaysiga soomaalida runtii iyo qofkii inuu ardaygii yahay inuu matalayo iskuulkaas magac safiirna u yahay iskuulkaas iyadana waxay tustay in ardaydaas ardayda kalena ay ku daydaan marka runtii mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan bahda waxbarashada oo dadaal fara badan ku jira haddana la joogo waktigii loo baahnaa
in waxbarashada la tayeeyo habka lagu tayeyn karana ay tahay iskuul walbo inuu soo diro ardaygiisa ardayga ugu fiican ma soo diri karo qof oo iska tag hebel adi kaale meesha camar buuxi maaha waxa waaye ma mateli kartaa waa iskuul marka si uu u matalana inuu aqoontii buugga keliya mahe waa aqoontii guuda maadiga ahayd weliba waxaan aada ugu faraxsanahay bishii barakeysneed ramadaan in lagu toosiyo ah waqtiga ugu habboon oo runtii qof walbana cibaadadiisa inuu badiyo loo baahan yahay in ilaahay la baryo si dembi dhaaf maarata qof walba u helo ummadda muslimiinta oo dhan dembi dhaaf ilaah siiyo waqtigii loo baahnaa in muxuu ahaa la badiyo isgargaarka qofku qof aad gargaartana waxaa ugu muhiimsan qof waxbarashada aad ku gargaarto marka runtii tartanka ramadaanka lagu toosiyey maadooyinka diiniga oo weliba hadda laga hadlay sida quruxda jaamacadda usoo diyaarisay oo tarbiyeynta qofka hadduusan taariikhdii islaamka aqoonin islaama ma iska dhihi karo hadduusan aqoonin taariikhdii muxuu ahaa nebi maxamed caleyhi salaatu wassalaam iyo asxaabtii iyo sida oo struggleka ama muxuu ahaa diintan ku faaftay ama oo bulshada xitaa lagu gaarsiiyey arrimahaas oo dhan xitaa waxay keenaysaa qofku inuu ogaado inuu safiir u noqdo muxuu ahaa diinta islaamka uu ogaado diintu inay tahay diin nabadeed oo hadda sida diintii laga dhigayo rabshad iyo qarax iyo dhib dadka inaysan ahayn oo tahay diin nabad oo islaama runtiina caalamkaas annaga aan tagnay qurbaha dadku markii ay diinta arkaan ee bartaan aada ugu dhiiradaan inay kusoo biiraan marka micnaheeda waxay kutusaysaa in mar walbaba nalooga baahan yahay in diinteenana kor u qaadno weyneyno habka keliya aan ku weyneyn karno waxa anagoo aqoonteen shaksiyan inaan dhisno marka runtii aada iyo aadaan rabaa mar kale kaga mahad celiyo idiina caddayn annaga inaan diyaar u nahay ardayda guuleysatay iyo arday walba dhiirigelin noocay tahay uu baahan yahay sidii lagu heli lahaa waana ka wada shaqeyn doonaa marka universal t v iyo muqdisho iyo dhammaan maamulada iskuulladaasba aadaan idiin mahad celinaynaa gaar ahaan saddexda iskuul runtii gabagabadii soo gaaray marka ma aqaan macalinka bare inuu u helay af soomaali ku habboon maya forfightku u helay laakiin tii kale salaaxudiin waxay kusoo baxday qorituur marka qorituur ku hel maa dhahdeen iyadan marka taasna in mid un laga sii fikiro inay noqoto haa marka runtii mar kale aad iyo aad ka mahad celinaa waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waayahay abaalmarinada ayaan bixin doonaa qadar dhextaala kadib hadduu alla idmo maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maan muruq lagu shaqeeyiyo ileen quruxi waa maal maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maal muruq lagu shaqeeyiyo ileen quruxi waa maal murtiyey maguuraan taariikh la soo maray sheekaa micnayse xamar waa madhaafaan waana lagama maarmaan malkii dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar waa madhaafaan murtiyey maguura taariikh la soo maray sheekaa micnayse xamar waa madhaafaan waana lagama maarmaan malkii dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar waa madhaafaan
quruxi waa maal maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maal muruq lagu shaqeeyo ileen quruxi waa maal murtiyey maguuraan taariikh la soo maray sheekaa micnayse xamar waa madhaafaan waana lagama maarmaan malkii dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar waa madhaafaan murtiyey maguura taariikh la soo maray sheekaa micnayse xamar waa madhaafaan waana lagama maarmaan malkii dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar waa madhaafaan waayahay gabagabada ayaanu soo gaarnay gaar ahaan dhinacii bixinta abaalmarinada tartan aqoonadkii dugsiyada sare ee gobolka banaadir ee 24 iskuul ku tartamayeen iyadoo oo iskuulaadkaasi ay soo kala hareen waxaan rabnaa inaan dib u saxno 6 iskuul ee u dambeysay ee soo hartay waxay kala hayeen imaam maalig alanwaar salaaxudiin daarul qudus sheekh daa'uud iyo niileyn waxaana kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad kala galay iskuulaadka kale ah imaam maalig oo kaalinta koowaad galay iskuulka salaaxudiin kaalinta labaad galay iyo iskuulka kale ee alanwaar oo kaalinta saddexaad galay marka abaalmarinada ayaan bixinaynaa waxaan u yeerayaa markana kaalinta koowaad iskuulka galay ustaadka waxaan u yeerayaa ustaad cabdiraxmaan dabcan isaga u qaaday oo maleena abaalmarinta gudoomiyaha iyo agaasimaha iyo sahliiman ayaana waayo waxaa sidoo kale loogu talagalay hadiyadaas iyana oo gudoomiyaha gobolka ee guddoonsiin doono iskuulka imaam maalig ustaad cabdiraxmaan ayaa u guddoomiyay waayo aad buu umahadsay waxaan u yeerayaa iskuulka kaalinta labaad galay oo iskuulka salaaxudiin ustaad maxamed mire cumar ayaan isna u yeeraya أستاذ محمد أنت استاك سؤالك صلاح الدين كهل أنت لبعض قلي أستاذ محمد مرة أدبو ما تني هاي كهل أنت هاد سكولك الأنوار أيان ويرينا وحاسو استاك أستاذ سعيد أحمد فقاس aad buu mahadsan yihiin gudoomiyaha gobolka ustaad liibaan iyo agaasimaha tv universal iskuulkii kaalin saddexaad galay alanwaar ayaana abaalmarintiisa la siiyey waxaan u yeerayaa markan waa dhinacii abaalmarinada ama shahaado sharaftii aan ugu talagalnay dadkii tartankan qaybta ka soo qaatay waxaa ugu horeeya ustaad barre sheekh cabdullaahi bangaaldesh gudoomiyihii guddiga tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka banaadir ustaad barre aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha guddiga waxaan u yeerayaa axmed abshir geedi oo ah xiriiriyihii tartankan islamarkaana ah shaksi kaalin weyn ka geystay guud ahaan hirgelinta tartankan
ustaad axmed abshir geedi aad buu umahadsan yahay waayahay aad buu umahadsan yahay waxaan u yeerayaa dabcan anaa teedii waxaa dabcan aan qaadan doona markan iyo ogolaada inaan maasha allah gudoomiyaha kadii ka soka ma jiro maasha allah taadalla waay aad baa umahadsantihiin waxaan u yeerayaa dhinacii kale waxaa oo guddigii tartanka ustaad maxamed xasan faarax guutaale waxaa u qaadi doona ustaad liibaan mase ustaad barra guddi ustaad barra u qaadi doona waay waay waxaan u yeerayaa dhinacii farsamo yaqaanadii kameramaanadii iyana barnaamijkan qaybta ka qaatay maxamuud mukhtaar cabdulle koofi oo haddaba dhinaciina taagan ayaan u yeeraynaa markaan aad buu maasaya koofi dabcan isagoo shaqadiisii weli wata ayuu haddana aan abaalmarintan u ogolaan inuu guddoomo waxaan u yeerayaa cabaas cabdi xaashi oo isna haddaba stuudiga nagula sugan cabaas intuu iska bixin waxaan jeclaan lahayn guuleel cabdisalaad dabcan wuxuu fadhiyaa stuudigii hadda livekan hadda aan ku jirno marka inooma suuragelaysa inuu noo yimaado inuu iyo cabdiraxmaanba labadoodaba hadda qaybta farsamada ee maqalka iyo muuqaalka noo fadhiya inuu u qaadaan marka codsayn markan shahaada sharaftan iyana waxaa loo gartay jaamacadda muqdisho dabcan ustaad liibaan isaga un baan guddoonsiin doonaa guddoomiyaha gobolkaan guddoonsiin doona marka middan shahaada sharaftan iyana waxaa loo gartay tv-ga universal innagaa isu garanay oo mahadsantihin guddoomiyahana guddoonsiin doona maadaama uu soo taagayo islaamaadida siinaysa waay tv-ga universal iyo jaamacadda muqdisho iyo dhammaan tartamayaashiina iyana waxay u garteen shahaada sharaftan gobolka banaadir agaasimaha tv-ga universal ayaana madaxiin lagu guddoonsiin karaa guddoomiyaha shacabku waa tiibi waay aad waa mahadsantihiin guud ahaan tartankii inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa waan u mahad celinaa dhammaan intii ka qayb qaadatay waxaan u mahad celinaa maamulka gobolka banaadir oo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho halkan nala joogo isla markaana waqti geliyay tartankan sanadii u dambeeyeyna hormuud u ahaa sidii tartankan uu socon lahaa waxaan u mahad celinaa jaamacadda muqdisho oo iyana sidaas kale tartankan kaalin mugle uga qaadatay su-aalaha soo diyaarinaysay agaasimada tv-ga universal aan u mahad celinaa isna oo lafadhabar u ahaa tartankan iyo guud ahaan maamulka iyo shaqaalaha tv-ga universal dhammaan maamuladii macalimiinta iyo ardaydii ka qayb galay tartanka sanadkan ayaan u mahad celinayna waxaan rajaynaynaa in sanadka dambe innagoo nabad iyo caafimaad qabna inaanu mar kale isku imaan doono guud ahaan waa nagintaa dhammaan asxaabtii ka qayb qaada tartankan u mahad celinaa ustaad barre guddoomiyaha guddiga axmed abshir geedi xiriiryihii tartanka ustaad guutaale oo guddiga ka tirsanaa saaxiibadeena farsamada inaan u mahad celinaa koofi cabaas cabdiraxmaan iyo guuleed guud ahaan waa nagintaa barnaamijkeena gaarka ahaa ee aanu maanta kusoo xiraynay tartan aqooneedkii dugsiyada sare ee gobolka banaadir tan intaan barnaamijka mid lamid kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo inanti raayon qabiilata uron isu tagaa inanti raayon qabiilata uron isu tagaa
tagnaan tala ku goyno lo taagiciye maxaa taqaan tala ku goyno lo taagiciye maxaa taqaan sobiya weeyaan lagu tisbaade maxaa taqaan sobiya weeyaan lagu tisbaade maxaa taqaan loo tartamaya maxaa taqaan dari kasta ayaa taqaan turuntu raaco kuftay ayaa taqaan talabsan waydo dhacday ayaa taqaan turuntu raaco kuftay